waa tahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Harun Macruuf. dhacdada taariikheed ugu weyn ee Soomaalidu ay ku faanto waxay dhacday 72 sano ka hor markii dalka laga yagleelay xisbigii ugu horeeyay wadaniga ahaa xisbigii leegada oo dalka u horseeday xornimada sanadkii 1960 haddaba sidee ayaa xisbigaasi uu ku dhashay sidee ayuu ugu guuleystay inuu wada hanto taageerada Soomaalida maxaase dadka hadda jooga ay ka baran karaan aasaasiyaashii Soomaalida maanta waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf haatanna xildhibaan ka ah baarlamaanka Soomaaliya aabihiina uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalkii dhagax tuur ee gobonnimo doonka ee 5 Oktoobar 1949 ugu horreynna waxaan weydiiyey sida SYL ay ku aasaasantay waxaa loo aasaasay Yaasiin Usmaan Yuusuf baa mataqaanaa horta fikradda keenay isaguna waxaa jiray 47 nin oo Talyaani oo xisbiga shuuciga ka tirsaneyd oo ka soo cararay Mussolini oo Soomaaliya soo galay si la socotina de shuuciinta mar wax ka soo jeedeen gumaysiga iyo ismaasay ka soo jeedeen marka Yaasiin la ismarteen marka waxay wada dhageysan jireen raadiyo mataqaanaa dagaalkii labada adduunka soconaya oo dhageysan jireen waxaa dagaalkii labaad marka ka dhashay dhaqdhaqaaqyo gobonnimo doon ka dhashay oo mataqaanaa Afrika iyo Asia kulli ka bilowday oo gumaysiga la dagaalamayay marka iyada ayaa ay meeshii aaraadii siyaasiyiin iyaga wada hadleen oo ku yiraahdo Yaasiin hadalka laftiisa ma samaysataa bay ku yiraahdeen madal Yaasiin marka fikradaas uu qaatay nimanka ayaga ahaayoo 13 nin walba gaarkiisa ayuu la sheekaysan jiray marka wuxuu diidanaa in ingiriisku ogaado waa weeye dhalinyaradaas u dhex galay in walba waa la sheekaysanaya dhaqdhaqaaqyada gobonadooonka meelaha ka jira kala sheekaysanaya markii uu ogaado ninkuu ra'yigiisa uu qabo ra'yi fiican ku arko ayuu leeyahay jiray haddaan say saas sameeyay yalla maxay mataqaanaa sababta marka waxay aasaaseen SWC wax la yiraahdo Soomaali Musical wax la yiraahdo macnaheedu waxa xisbiga diidan yihiin in ogaado aburiyo marka muddo magaca ururka dhalinyarada oo la darariyo iyo sameysay laakiin underground oo dadka hoos laga hanuuninayo oo la gaarsiinayo xorriyadda isticmaalka loo dagaalamo ayay ka shaqeynayeen marka ka bacdi ayaa maaragtay markii ogaayeen dadku raacsan yahay dadkuna gobonnimadii loo diyaashay ay ku dhawaaqeen xisbi siyaasi oo SYL loo baxshay waa gartay waxaad ii sheegtaa marka si hoose ugu dhawaaqeen baa tiri SYC ayay marka hore ku dhawaaqeen ka bacdina SYC waxay isu rogtay SYL marka bal shaqooyinkii ay hoosta ka wadeen wax iiga sheeg iyo ololihii waxay hoos ka wadeen dadka inay yiraahdaan isticmaal baan la dagaalamayna hal diyaargaroobo Soomaali meel joogtada ayay dadka u diyaargareynayeen dadkuna waa soo dhaweeyeen isla markii dadka Soomaali dad iska furan bay ahaayeen way ogolaadeen isticmaalka in la dagaalamo oo xorriyad la gaaro markay ogaadeen dadku aad u la jiro meel walba ay ku dhawaaqeen ay xisbi siyaasi xorriyad doonayaan marka waqtigii ingiriiska afar dhaqdhaqaaq xoog la dhacay oo isku xigay oo mataqaanaa munaasabado waaweyn oo dagaalo ah xoog la dhacay sidii hore 1946 buu ahaa markii ingiriisku soo rogay koodiga madax canshuurka uu soo rogay dowladda leegadu ay la hadashay ingiriisku wuxuu yeeray odayaashii qabaa'ilka madaxda u ahaa wuxuu waa saxiixaysaan ninka waa soo tusanaynaa waxaa ka mid ah nin leegada oo allahu naxariisto dhigi xuseen aan noolaato oo asagu markaa dhaqaaqay ahaa qolada beelaha Soomaaliya mid kamid ah xamarka waraa dabadna markii ay meel isugu tageen odayaashii wuxuu ku yidhi laba geeriyood baynu dhexnaalaa waxaynu dooranayna midda sharafta la midda aan sharafta lahayn haddaan ingiriiska ogolaanana dadkeena na dilayo leegada na dilaysa sharaftaan ku dhimanaynaa haddaan guddiimada ingiriiska na dilayo sharaf baynu ku dhimanay marka labaas aynu kala dooran waxaa la yidhahdaa kugu raacmay markaan gaalka u tagna u sheeg mataqaanaa inay arrintaas aanan ogolayn mar gaalka u tagay wuxuu yidhi Soomaaliya waa diiday saxiixnimada Soomaaliya ha noolaataa loo baxshay isla markiina waa la xiray dadka bacdina waa la soo daayay waxaa xigtay 1947 waa gartay dagaalka kalena goormuu ahaa waxaa ku xigay dagaal duqa magaalada xamar wuxuu ahaa boobeysta liiga Talyaani buu ahaa mataqaanaa marka wuxuu abaabuli jiray mar walba axsaab Talyaani oo isticmaalka la jirta xorriyadda ka soo horjeeda oo leegada ka soo horjeeda dabadeedna wuxuu abaabulay nimankii Yemeniinta ka soo jeeda Carabta ahaa oo ku yiri mataqaanaa adinku
waxa weeye waxaa tihiin mataqaanay ii sheegeen dadkii sayid barqash oon dalkan annagu aan u haynay dadkeed iyo baadiikiiba dalka qabsanaya marka waa inaan la dagaalantaa marka yamaniintiina marka xoog bay ku lahaayeen magaalada xamar oo maqaayadaha iyo dukaamada iyo kulligii ayagaa lahaa gaari farasiyada xataa markaa taxi ahaa ayagaa lahaayoo mataqaana iska lahaan jiray marka waxay sameen gaariyaashii ka fureen fardihii seefahooday soo qaateen dabadeedna leegaday weerar kusoo qaadeen ma garan oo xaruntii leegaday qabsadeen leegadina waa la dagaalantay aad baa loo laayay maalinta iyada ah runtii marka waa 47 weeye mataqaana markay dhacayso arrintaas waxaad ii sheegtaa marka dagaalkaas markuu dhacay dagaalkii dhagax tuur isaga goormuu dhacay 48 waxaa xamar yimid fort daawa cabdullaahi ciise allah u naxariistay waftigiisi markay united nationka tageen iyo xorriyad baanu rabnaa talyaaniguna koox ka daba diray leeyihiin xorriyad ma rabna talyaanina loo soo celiyo afartii dowladood dagaalkii labada adduun ku adkaaday baa soo baxay oo yiri waxaynu soo ogeynaa dadku maleegad iyo xorriyad bay rabaan mase talyaanay doonayaan marka saddexdii beri oo hore waxaa shir socday 6 xisbi oo mataqaanay borotalian xisbi mooye inta kale ay tahay oo calanka talyaaniga wata oo leh mataqaanaa ii sheegeen ma rabno xorriyada talyaaniga loola soo celiyo marka maalinta 11 January 48 baa maalintii leegada oo maalinta xawtaakada tilaya weeye talyaaniga markuu wuxuu soo diray borotaliankii leegada weerara biyiri dabadeedna xawtaakii markuu markaa joogtay xarunta leegaduna waxaa ku sirfeen meesha guriga ummadda iyo hadda ay ka dhisan yihiin meel walbayna sagafiisi awoodooda u aragto markaas ayaa horseedkii leegadu waxay u tageen waxay xaruntii waa la qabsaday xawtaakana waa la dilay leegadu weerar bay soo qaaday 52 talyaaniga dileen markaas magaalada xamarna leegada qabsatay kuwii borotaliankana waa carareen soo daawarkii markay noqdeen oo ay dib u laabteen way xagga tageen way go-aan gaareen leeyihiin mataqaanay soomaaliya talyaani ha loo dhiibo markay diyaar garoobaan inay khasnad qaadan karaan ha qaateen markaas ayaa mataqaanay iyagoo diyaar noqdaan xorriyad hala siiyo cabdullaahi ciise marka taar soo diray la yidhaahaa beel ay somali oo la yidhaaho oo codka ummadda soomaaliya uu leeyahay waxaa go-aan lagu gaara talyaani ina loo soo cesho without condition oo macnaheedu yahay inuu caburiyo dhaqdhaqaaqa gobolnadoonka marka waa inaad muujistaan inaad diidan tihiin marka waa 49kii waa 5 October 1949 dagaalkaas waa dagaalkan kuu sheegay abayba ku dhintay rag badan oo odayaal badan baa ku dhintay dad badan waa lagu dhaawacay xaruntii leegada mataqaana waa la xiray central committee waa la masaafishay magaaladii iyo dalkiina bandi waa laga dhigay marka waa marka cabdirasaaq iyo allah u naxariistay taarka dirayeen lawaaxa iyo cabdullaahi yuanka joo u dirayeen leeyihiin intaas qofood baa dhimantay intaasna waa dhaawac xaruntiina waa xiran tahay central committee waa la masaafishay waa xiran yihiin cabdullaahina meesha khudbada uu ka akrinhayo markaa la weydiiyey safiirkii ingiriiska mataqaanaa markaas yuanka joogay iyo nusaac halaysiiyo buu yiri mataqaanaa arrintaa waa soo sheegaya arrintu waa dhacday safiirkii ingiriis marka ayaa bishii November 49 la fariistay amendment waxa lagu sameeyay go-aankii hore oon waqtiyeysnay markaas waxa go-aan lagu gaaray Soomaaliya in 10 sano gudahood xorriyad la siiyo oo mataqaanaa talyaani uu gaarsiiyo markii la gaaro 60 ayaa go-aan lagu gaaray waa gartay marka intaan sida buuxda loo hoos tagin talyaaniga bal waxaad wax yar iga sheegtaa aragtida wadamada caalamka Mareykanka Ruushka Ingiriiska Faransiiska iyo wadamadii kale arrimaha Soomaaliya xiiseynayay Masar oo kale fikradii ay ka qabeen in Soomaaliya lagu wareejiyo talyaaniga waxa weeye horta marka ugu horeysa talyaaniga mataqaanaa in loo dhiibo wadamada reer galbeedka ah waxa Ingiriis dadka u leeyahay soo leegadu ma idin talyaani ma rabna idhaayeen Soomaa talyaaniga in loo dhiibo nolol soo celiyo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Awooda iyo Faransiiska leegaduna waxay diideen talyaani nolol soo celiyo waxa Ingiriisku u leeyahay waxay ogolaada talyaana lidinkeena ayaabay ahayd marka waxa weeye dagaalkaas dhagaxtuur waxa waa dagaalkii goostay in la cayimo xorriyadda markana la siinayo markii dadka la laayay faraha badan oo dad badan la dhaawacay waxa soo dhaceen bishii November baa marka waxa dhacay waa 5 October November baa dib loo fariistay oo marka la yiri waa in la siiyaa mataqaanaa sidii sabab lixdanka xorriyad Soomaaliya la siiyo markaas go'aan la gaaray waa gartay marka xukunkii talyaaniga sidee buu ku bilowday talyaani wuxuu la soo galay alcar iyo weerar iyo dhibaato la soo galay iyo caburin uu rabo leegada inuu burbursho axsaabada talyaana sameeyo oo xorriyadda dib u dhigo ayuu ka shaqaynayay laakiin leegadii xoog iyo waxa ka sii midnimo iyo mintajnimo ka sii qaaday
talyaanigina kuma usan guulaysan. waxaa markaa soo 54 baa waxaa duqa magaalada ka ah xamar duqa magaalada maaha ama sortooraha talyaaniga xukuma mataqaanaa waxaa la dhihi jiray magaciisa Ancelotti Rica Ancelotti baa la dhihi jiray. wuxuu rabay inuu ogaado dadku maleegaday raacsan yihiin mase waa mataqaanaa baratali weeye dalku municipality malay xamar mooye inta kale xamar keliya dowlad hooseed weliba oo duq magaala ka yahay talyaaniga. marka doorasho dowladaha hoose sameeyay si uu ogaado mataqaanaa dadku maleegaday la jiraan mase waxay la jiraan mataqaanaa talyaaniga la jiraan. codadkii marka waxay kusoo baxeen 90% ka badan mataqaanaa ayaa leegada guulaysatay. marka ayuu mataqaanaa ogaaday in dadku leegada la jiro oosan talyaanigu caburin karinin ayuu Abdullah Cusmaan u yeeray oo ku yiri waxaan rabnaa inaanu anagii adinku heshiino oo aan collaboration wada shaqeyno oo xorriyadii waqti lagu talagalay heshiino oo markaas aynu misnaa dowlad daaqil ay soo hormarino ayaa mataqaanaa ayaa mataqaanaa collaborationahaas dhacay. marka collaborationahaas dhinacna uu ka fiicnaa dhinacna qalad buu ka ahaayo. waxaa weeye matalan kundishibukan waxaa kamid ahaa in nimankii baratooyinka ahaa oo xorriyadda kasoo jiray maamulka la sameynaya inay ka qayb galaan ayaa kundishin kamid ahaa. marka leegadu waxay laba buug bay lahayd, buug madow iyo buug cad bay lahayd. buugga cad waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda doonaya ayaa lagu qori jiray. buugga madowna waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda kasoo horjeeda. ballantiina waxay qof walba wuxuu mutaysay inuu helo 60 markii xorriyadda la qaato ayaa dadka lagu ballaniyey. marka buuggii madooba iyo buugga caddaa meeshaasay ku dhinteen. magara collaborationahaas tanana lala galay ayaa dishay ayaa meesha ku dhimatay. marka dhibaatada ugu weyn leexashada keentana taas ahayd halgankii xooga badnaa ummadii soo gashay xoogaa dhisay ka gaarsiin heshiiskaasuu ahaa. magara dhinaca kale dee qolada mudareedka ay leeyihiin talyaani culaaskiisii dhibaatadiisanu iska leexinaynaayo iska ogolaano oo xorriyadayda waqti loogu talagay aynu qaadano oo ayay mataqaanaa qaarna waxay la war waxa yiri taariikhda iyaan lagu cayaarin oo aduu meesha leeyad xataa ku kala jirtay waa ku kala dilaacday oo la socotaa daaqilka markii la qaatay aadan Cabdullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu baarlamaan Cabdullahina wuxuu Allah u naxariistay ra'iisul wasaare ninka la yiraahdo Allah u naxariistay Xaaji Maxamed Xuseen 13 kamid ayaa waxa loo doortay presidentki leegada. Xaaji Maxamedna waa xajiro oo ogolay heshiiskaas ka soo horjeeday buu ahaa. markuu xaban yimidna waa ka hor yimid leegadii baa laga saaray oo la yiri mataqaanaa ay sheegeen ninkii leegada 13 kamid ah waa laga saaray. dad badan baa la caro direed Soomaaliya furay. marka leegadu way kala jirtaa arrintaasina ku kala jirtaa. arrinta ku saabsan dowladii daaqiliga sida ugu diyaarisay wadanka xornimada iyo doorkii SYL iyadana waxay ka sheeg waxa weeye daaqilku waxa loo diyaar garoobay mataqaanaa in xorriyadda waqti loogu talagalay la qaato 60 markii la gaaro maamulku meel gaar oo sii diyaariya mataqaanaa si dowladda xukuumada meesha laga sameeyay. marka 60kiina waxaa soo diiray wayna waa yimaadeen laba xisbi oo xisbiga SNL iyo xisbiga USP ayana yimid oo midnimadii Soomaaliya wax ka saxay oo xamar lagu saxay oo 1960 labadii gobol oo Ingiriis ka kacay midna Talyaani ka kacay baa mataqaanaa la mideeyay oo jamhuuriyadda Soomaaliya aasaasay. marka iyada 61kiina afti loo qaaday in mataqaanaa jamhuuriyadda Soomaaliya ay jamhuuriyadda tahay mataqaanaa. waa gartay leegada SYL sidee bay uga gudbeen arrinta ku saabsan qabyaaladda waa ka gudbeen. Soomaalida isku aamineen leegaan ma sheega jirin mataqaanaa wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo mataqaanaa aan qabiil sheegan karin buu ahaa oo loo ogolay. ninka haddii qabiil sheegtana leegada waa laga saari jiray ama waa la ganaaxi jiray. masalan haddaan kuu sheego waada dhowr iyo kontonkiiba in barataliana ayaa xabad waxa ku dhiftay leegada madax xabad kala dhacday. dadka leegadii oo dhan baa inta lasoo xareeyay baa kii la gelshada karbaniyeriga talyaaniga ahaaba mid yaala markaas soo gelaya waxa la leeyahay kii raasasay qabiilkaaga waayo. markaasuu leeyahay ninka leegada dhimay qabiilkeeda Soomaaliya buu leeyahay magara. markaasaa la dilaya inta la garaa xabsi lagu tuuraya. marka nin dhalinyaro leegada kamid ayaa mataqaanaa meeshii soo galay markaasaa la kii raasasay. marka wuxuu raggiisa xidmihiisa dalgalanayo la dilayo ayuu arkay. markaasuu yidhi caawa keliya reer hebel baan hay waa la soo daayay. war maxaa kusoo bokada raggal waa la xiray waan ka sheegay waxaan caawa keliya reer hebel baan hay. markaasaa la ganaaxay waa la ganaaxay waa mataqaanaa waxaa la yidhi waa qalad barsan inaad qabiil sheegata maahay. marka waxa weeye halkaas qabiilka wax la diido la nacay buu ahaa dulli ah oo baktiga qarandiisa buu ahaa.
waa gartay markaad aan ka hadalno waqtiga maanta aan joogno miyaa ka adkaa oo ka dhib badnaa xilligaas mise dadka iyo wadaniyiinta xilligaa joogay ayaa ka hawlkarsanaa kana aqoon badnaa kana wadanisanaa dadka hadda jooga waa midkii waxa weeye hor dadka hadda joogaa dad jira maaha dad taariikhlana maaha dadkaagi dadkaana wax la seerdhigi kara maaha dadka waxaa iyadoo isticmaal jiro oo la dilahayo oo la xirayo oo shaqada laga eryahayo oo xabsi lagu tuurayo wax walba lagu samaynayo ayay soomaalinimadooda mataqaana ayay u dagaalamayeen xoolahooda ku bixinayeen oo u dhimanayeen oo wax walba ay samaynayeen dadka halkaa jirana dowladnimadii iyo qarnimadii burbursheen qabiil bay ka doorteen iyo shaqajaannimo iyo tuugnimay ka barteen ayay ka doorteen iyo jaajusnimo iyo shisheeye inuu shaqeeyaan bay ka doorteen qarnimadii mataqaana iyo dowladnimada dadka usoo dhinteen usoo dagaalameen marka dad la seerdhigi kara ma ahayn iyo dad sii dogtoona aqoonta kuwaana aqoon badan oo tacliim badan laakiin aqoon xuna raqiiso waxba aan tarin bay mataqaana meel la ogaayaan oo qarandiisnimo aan waxba tarin marka waxa weeye wax la seerdhigi kara ma aha iyo wax la sii kara ma aha waxaan garanayaa dad mataqaana ii sheegeen jirkooda leegada calaamadeeda ku xiranaya oo inta isku dilayo oo le jirkayga meel kale ku aaminimay calaamada leegada dadku meeshaasay gaarsiisanaya gabdhuhu lama hadli jirin inuu dhalinyaro ahayn oo leegaan ahayn oo sama xirayn calaamada leegada lama hadli jirin canduurta ku tusoo ka dhaqaaq marka dadkaas waxa weeye gabdhuhu munaayadahooda geli jireen iyo mataqaana dhegahooda iibin jireen masruufta la siiyo iyo nus leegada u geyn jireen marka waxa weeye dadkaasi dad laisku nisbayn kara maaha iyo waxa si dhow midda toona marka dadka hadda jira dad dulliya weeye oo wada jaajuusa oo wax daran ah oo shisheeye u wada shaqeeya oo liita weeye oo wax ka liita aana jirin weligeyna ma arki dad noocaan oo kaa dadka hadda jira waa garta maxaa ugu wacan bay kula tahay ma garana wax waa dilo waa qaran tagnay waxa weeye qarannimada waa naga baaba'day qabiil iyo tuugnimo iyo sarajan waxa la reer hebel baa wata reer hebel baa wata reer hebel baa wata reer yani wax kalaba la garan maayo markaasaa nin walba wuxuu tartamaya inuu isticmaalkooda ka galo iyo waxay ka dhigeen mataqaana usan aaminsanayn dalkii dadkiisii sharaftiisa midna usan aaminsanayn haba yaraatee wax la samayn karo oo waqtigaas iyo dareenkii wadaninimo ee xilligaas jiray iyo maxaanku idhaahdaa daljacaylkii iyo wadan jacaylkii lagu soo celin karo xilligaasi jiray ma jira dadka soomaalida kulli kama ay dhammaan wadaniyadii daljacaylkii dad badan oo jecel wadanka iyo midnimadaa jira laakiin organisasyoona midaysan male kalsoonidiina waa dhimatay oo is-aaminkii baa yaraaday marka haddii organisasyoon wadani u abuurmo oo xisbi wadani u abuurmo oo ururiyo dadka muwaadiniinta ah dib baa loo soo noolayn karaa wadanidii soomaalinimada qof kastoo la sheekaysido dareenka waa raba wadaniyada laakiin waxa ka adkaaday midka ku shaqaysanaya shisheeyaha u shaqeyna danaysa qabyaaladii qurb waxaa lagu dilay soomaalida sinaasina laba qodob qabiil siyaasadaysan oo dershe lagu raadinayo iyo diin siyaasadaysan oo dershe lagu raadinayo ayaa soomaalida sinaasina bishxar gaarsiisay dadka soo xiray marka in laga baxo soomaalinimadii qarnimada soo celiyaa loo baahay intaad ka xorowdaan qabyaalada iyo waxyaabaha lamidka iyo danaysiga midnimo iyo wadajir usoo jeerto xorriyadii iyo sharaftiina soo ceshada oo midooba isjeclaada oo mataqaana qarannimadii iyo mafciskiina soo ceshada laisku aqoonsi intaasaan ku leehay barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cabdi yuusuf ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaanna ka ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xilligan inta aynu mar kale kulmi doonnana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo aad buu u mahadsan yahay haaruun macruuf